abaartu runtii waxa weeyaan gugii hore oo xumaa iyo dayrtii oo la waayay markii ay isbiirsatay iyo dalka oo intiisa badan xaaluf isaga badan yahay waxa dhacday abaar ismaciirsata abaarta ayada gurmadkii loo baahnaa lagama gelin maantana marxalad xun oo qaylo dhaanteeda iyo maalinkan maanta qayladeedu aad u badan tahay baa jirta waxaan doonayaa inaan ku baraarujiyo xukuumadda maanta talinaysa Somaliland inay sidan si dhaanta ama si ka adag hawsha u gasho ayada xilka dadku saaran yahay ayaga xidka qaranku saaran yahay xisbiye ma saara cid kalena ma saara gudida abaaraha runtii waxaad moodaa in daway dadaalayaan laakiin gudida abaaraha lafteeda waa xukuumaddii ayaa dusha ka haysata waxa la inoo soo sheegayaa goobaha qaar inay dhimashadii dadku imika bilaabmeen baligubadle waatii la sheegay 4 qof baa ku dhintay dadka marka ay cunno waayaan xooluhu markay ka madhaan ee cunno waayaan ee nafaqadu dhamaato waxa la hubaa in dadkuna dhimanayo waxa maanta loo baahnaa xukuumaddu inay xaalad degdeg ah samayso in tala qaran la galo in caalamka loo qayliyo in maalinkan maanta la ogeysiiyo duwalkan carbeed siiba kuwan deynala sheergareeyay dalkii dekedaheennii iyo madaaradeenii ama laga kareeyay ama laga iibiyey waxaad moodaa gurmadkii loo baahnaa iyo qaylo dhaantii loo baahnaa xukuumaddu inaanay samayn inay arrintaa aad u fududaysatay xilkuna xukuumaddu saaran yahay cid kale ma saara